gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda oo uu biyo dhigay roobkii da'ay 24 saac ee ugu dambeeyay. duqa magaalada Muqdisho ayaa goobihii uu booqday waxa ka socotay shaqo ballaaran oo ay howlwadeenada dawladda hoose ee Xamar biyaha uga saarayeen wadooyinka Muqdisho si shacabka loogu fududeeyo isu socodka gaadiidka iyo bulshada. goobaha uu booqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa ka mid ah wadada horumarta dugsiga tababarka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Iskool Booliisiya, wadada 21 Oktoobar, warta kilomitir 4 ee degmada Waabari, wadada Buulxuube ee degmada Wadajir. gudoomiye Cumar Filish ayaa maamulada degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu faray in la xoogan oo nadaafadda iyo bilic soo celinta laga qabto wadooyinka caasimadda, waxaana sidoo kale uu ugu baaqay bulshada inay garab istaagaan howlwadeenada dawladda hoose ee Xamar. Cabdiraxmaan Mideeye, Bilan Radio.